ka socda guddiga nabadda iyo amniga midowda Afrika ayaa maanta tagay magaalada Kismaayo iyagoo maamulka Jubbaland kala hadlay arrimaha ammaanka iyo howlgallo la filayo in dhawaan ay ciidamada isgarabsanaya ay ku qaadaan deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab ee Jubbooyinka. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed. waxaan ku heshiinay in dardar geliyo lana dhaqaajiyo guud ahaan sidii howlgalka laga soo jeesho loo dhameystiri lahaa iyo diyaarinta ciidan qaran oo Soomaaliya la wareega maamulkeeda iyo ammaankeeda xilliga ay u dhamaato hawshood aad ugu mahadsan booqashada la soo booqdeen marlabaad iyo saddexaad waxaan leeyahay thank you very much waana ka rajaynaynaa inay fuliyaan lala dedejiyo howlaha iyo dhismaha ciidan qaran oo Soomaaliyeed amaasanti wakiilka guddiga nabadda iyo amniga midowda Afrika Ntonshingo Mundimusu oo isna ay maanta u ahayd booqashadii ugu horeysay oo uu ku tagay magaalada Kismaayo ayaa amaanay horumarka ay sameeyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubbaland ee magaalada Kismaayo isagoo sidoo kale ka hadlay arrimaha ujeedada safarkiisa. waxaanu u nimid halkan inaan qiimeyn ku sameeyno horumarka ay ilaa hadda Soomaaliya sameysay gaar ahaan mashruuca midowda Afrika ee ammaanka iyo waxa laga qabtay si loo caawiyo dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale inaan eegno waxa kale ee loo baahan yahay si loo dhiso Soomaaliya nabada oo wax tari karta dadkeeda. madaxweynaha Jubbaland iyo wakiilka guddiga nabadda iyo amniga midowda Afrika ma aysan shaacinin xilliga kama dambaysta ah ee ay bilaabi doonaan howlgallada lagu xoreynayo deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab.